bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadka kulmiyo warida dhaqaalaha kobce kaalin qaadayo kobka horumarku kor u qaadayo kulmiyeynune musharax xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sool Axmed Qani Xirsi Xasan ayaa cududiisa taageero ku soo bandhigay qaar ka mid ah xafiisyada uu ku leeyahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana uu xadhiga ka jaray xafiiska ololihiisa ee uu ku yeelan doono xaafadda Royal taageerayaasha mugale ee musharax Axmed Qani ayaa soo bandhigay ciyaar dhaqameed iyo taageerada ay u hayaan musharaxa iyagoo sheegay inay codkooda la garab taagan yihiin maalinta 31 May ee codaynta bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo tahay maalintii koowaad ee xisbiga kulmiye waxaan joognaa xafiiska Axmed Qani boqolaal dad oo taageerayaasha Axmed Qani baa iskugu yimi waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa inaad codkiina siisaan musharaxa Axmed Qani Xirsi Daad maanta 31 kana codkayaga waxaan ugu ridi doonaa ama u hibayn doonaa Axmed Qani Xirsi Daad aad iyo aad baa mahadsantii marti sharafka ballaaran haweenka iyo ragaba iskugu jirta halkan iskugu timi Rahmaanir Rahiim maanta shucuubteeda lama soo koobi karo maanta waa maalintii xisbiga kulmiye u lahaa halkan waxaan ugu dabaaldegaynaa musharax Axmed Qani Xirsi Xasan Daad oo ah xildhibaan u sharaxan golaha wakiilada 31 May doorashada dhici doonta Axmed Qani Xirsi Xasan Daad ma dooranaa codka ma siinaa xildhibaankeenu waa kuma ha guulaysto maanta waxa weeye waa maalintii koowaad ee xisbiga kulmiye barnaamijkiisa ugu horeeyay uu ka qabanayo magaalada Laascaanood halkan goobtan aan joogno waa xafiiskii Axmed Qani Xasan Xirsi Xasan Daad inaan Axmed Qani doorno diyaar ma utiin inaan xisbiga kulmiye doorno diyaar ma utiin haddaba waxaan leeyahay maalinta 31 May waa in qof kasta uu yimaado goobta uu ka qaatay kaarka waa inuu Axmed Qani ugu ridaa diyaar ma utiin musharaxa golaha wakiilada Axmed Qani Xirsi Xasan ayaa u mahadceliyay taageerayaashiisa bulshada gobolka Soolna fariin u diray iyo xusbigaba maanta waa maalintii aan ka jarayay xafiiskayga xafiiskii saddexaad weeyaan magaalada ka furno marka waa kii saddexaad baan furanay maanta waa maalintii xusbiga taageerihiisa la muujinayay marka waxaan ugu dardaarmayaa shacbigiina rag iyo dumarba maalinta 31 May inaynu diyaar garowno maalintaas oo ah maalinta cod bixinta astaanteeduna waxa weeye waa jaranjaro soo garamaysaan ama salaanka ma garatay marka taas inoo balana waxaan ka codsanayaa dhammaan guud ahaan inta joogta ee bulshooyinka Ralson maalinta 31 May inay codkooda igu deeqaan aan waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka Sool ku barbaaray ku dhashay ku koray wax ku bartay marka maalintaas aan rajayn doonaa inay codkeeda siiyaan waa maalinta 31 May sidaas aan ila ballan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood